haddii aad nin weyn tahay oo aad ka hadlaysid arrin laba dhinac u dhaxaysa inaad dhexdhexaad u muuqato. waxaan ka xumahay dooda federaalka iyo xiriirka dowladda federaalka iyo gobollada halka uu marayo inay igu adag tahay inaad dhexdhexaad ka noqotaan oo ka cudur daaranaya. waxaan idiin dulmarayaa qoraal kooban, meelaha qaarkoodna waad ku hakan doonaa. rag kale oo khubaro oo banalka oo qaarkood baan badidooda iga aqoon badan baa yaa buuxin doona waxa iga dhimanaada. su-aalahana waan wadaagi doonaa. burburkii dowladdii ku dhisnayd taliska kelitalisnimada ee Soomaaliyeed iyo dagaalkii ehliga ahaa ee ka dambeeyay wuxuu keenay in dib loogu noqdo hab qabiili ah iyo nidaam hogaamiye kooxeedyo oo hormuud u noqday dagaaladii lagu hoobtay. dagaaladaas dhibta dad iyo maal ay geysteen kasakow waxay xididada u siibeen wadaniyaddii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed, taasoo keentay in la is aamini waayo oo beelihii dagaalamay kala fogaadaan. dadaal badan oo dowlad goboleedka igad iyo beesha caalamku isugu tageen iyo gobol nabadeedyo sanado qaatay oo Djibouti iyo Kenya fidiyeen waxay keentay in dib loo yabyabo dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan habka federaalka. waxaa kaloo la qoray dastuurka qabyada ah oo aas-aas u noqday soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed. raggii dastuurka qoray qaarkood caawa meesha inala fadhiyaan waa ammaan gooni ah oo Puntland leedahay. doorashada habka federaaliga ma ahayn mid laab la kaca, bal waxaa loo arkay xalka keliya ee Soomaali la isugu hayn karo loogana fogaan karo habka litalisnimo oo ahaa sababtii keentay burburkii Soomaaliya. sidaa darteed waxaan qormadan ku eegaynaa meesha uu marayo mashruuca federaalka, dastuurka iyo habka federaalka. in habka federaalku yahay furaha nabad u raadinta Soomaaliya waa mid muuqata. hordhacana waan ku soo xusnay muhiimadda la siiyey federaalkan waxaa u marag ah in qodobka 1 iyo 4 si cad loogu qeexo oo ay weheliso in ku dhaqan la'aantiisu dambi tahay. qodobka 1 ee dastuurku wuxuu oranayaa Soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah leh gobonnimo dimuqraadi ah oo ku dhisan matalaadda dadweynaha loo dhan yahay oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan iyo cadaalad bulshadeed. الله سبحانه وتعالى كسكو أود دم وحال الشرعية أود دم وحال الشعبك وحنا أقول استعماليا ستوصة يسقو أديكسن هذه سووح صارتي سوى فرص الدستور يشروع ده وحرهبا إن قف أما قايب كمية بالشدة شيء تجوب النمط جمهورية الفدرال كصوماليا أما أو أديكسن تسيء جاره جوب النمط iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu maxad gudbaan. qodobka 4 ee dastuurku wuxuu oranayaa shareecada ka sokow dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa sharciga dalka ugu sareeya, isaga ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan. sharci kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeeda dastuurka maxkamadda dastuuriga ah ayaa awood u leh burinta sharcigaas ama talabada maamul si waafaqsan dastuurka. inkastoo ay andara tahay in dastuurkii la qoray 2009 uu weli qabyo yahay, haddana run ahaan wuxuu u taagan yahay meel wax laga bilaabi karo maadaama uu koobayo xeerinayo dhammaan arrimihii waaweynaa ee saldhigga u ahaa dowlad federaal. haddii lagu dhaqmana waxaa hubanti ah inuu horumar u horseedayo, taasoo ay marag u tahay guulihii ilaa hadda la gaaday. xaaladda guud ee dalku marayo halkaan markaan marayo intaanan qoraalka gelin waxaan rabaa inaan wax yar oo laga yaabo inay iska caadifo tahay ka hormariyo. dalku dhaqaale iyo amni isku mid ma ahayn.
meelo nabad iyo maamul awood badan ka jiro oo Puntland ka mid tahay oo Somaliland ka mid tahay iyo meelo nabadeedu adkaatay iyo meelo soo kabanaya marka isku xaalad ma ahayn laakiin haddana dalku ganacsi iyo isku socod wuu isku firaa dalka la go'aan ma ahayn marka waxaan waxoogay ka taaban doonaa meesha hadda dalka xaalku marayo oo sidaan ka afeeftay laga yaabo in la dhihi karo ama uusan ahayn dhexdhexaad ka ahayn iyadoo laga duulayo dastuurkan waxaa suuro gashay dhismaha 5 dowlad goboleed oo xubno ka ah federaalka iyo Somaliland oo gooni isku taagoosatay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku waxay ka kooban yihiin dalkoo dhan waxaa kaloo suuro galay in la dhiso golayaal shacbi iyo tiraba 3 jeer in la bedelo madaxweynayaal si nabad ah oo dimuqraadiyad ah waxaa haddaba ayaan darro ah in meeshii hore looga sii socon lahaa ay muuqato walaac xoog leh oo laga qabo in dib loo noqonayo mashruucii federaalkuna qarka la adlaado walaacaas wuxuu salka ku hayaa arrimo dhowr ah oo khatartooda wata kow ka gaabinta la dagaalanka argagixisada waxaa muuqata in dagaalkii argagixisada ku wajahnaa loo leexiyey duminta maamuleed goboleedyada iyo la dagaalanka mucaaradka rayidka ah iyo ciddii aan gurbaanka u tumin dowladda federaalka 3 musuqmaasuq aan hore loo arag waxaa shacabku u jeedaan in dhaqaale aada u fara badan oo ama horumarka dalka ama loo isticmaali lahaa ama argagixisada lagula dagaalami lahaa loo adeegsanayo burburinta iyo sanduleynta xubnaha dowladda sida gobolada iyo hay-adda sharci dejinta dhaqaalahaas oo badidiisu ka imaanaya dalka Qatar oo sida loo isticmaalay aan cidi isweydiin 3 baalmarka dastuurka in dowlad goboleedyadii dastuuriga ahaa la burburiyo iyadoo la adeegsanayo awood ciidan iyo laaluush in loo diido shucuubta gobolada dalka inay doortaan madaxda dowlad goboleedyadooda si waafaqsan dastuurka qaranka laguna qasbo shakhsiyaad xukuumadda federaalka wadato in habdhaqan kalitisnimo ah ka muuqdo madaxda federaalka iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ah la weeraro mararka qaarkoodna ay dhacday inay dadku dhintaan in shuruucdii taabanayay danaha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in lagala tashado intaan baarlamanka la geynin laga tallaabsado si aan dastuuri ahayn baarlamanka loo geeyo xayiraadda Jubbaland lagu soo rogay oo nuxurkeedu yahay in hawadii Soomaaliya loo isticmaalo hub lagula dagaalamo maamul dastuuri ah oo xubinka federaalka iyo ciqaab muwaadinka Soomaaliga qodobka xiga xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaa lagu doodi karaa inuusan jirin xiriir macno leh oo ka dhaxeeya xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka dowlad goboleedyadu waxay u kala qaybsan yihiin 2 qaybood kuwa la sanduleeyay oo madaxdii dadku doorteen laga saaray madaxa xukuumadda federaalku wadatana ay hogaaminayaan kooxdaas waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan madaxda federaalka iyo koox difaacanaysa xuquuqdooda dastuuriga ah oo raba in xiriirka xukuumadda federaalka ay la leeyihiin uu noqdo mid waafaqsan dastuurka kooxda hore aan soo sheegnay waxaa ka mid ahaa waa inaan soo sheegay waxaa ka mid ah South West Hirshabelle iyo Galmudug gobolka Banaadir weli looma samaynin maqaamkiisa kuwa difaacanaya dastuurka oo raba inay xiriirku ahaado mid dastuurka ku dhisan waxaa ka mid ah Puntland oo ah hooyadii federaalka oo aan xiriir la taaban karo la lahayn xukuumadda federaalka Jubbaland iyo xukuumadda federaalka xiriirka ka dhaxeeya waa mid colaadeed xukuumadda federaalka oo ku guul dareysay inay xukunka u dhiibto musharax ay wadato waxay diidan yihiin aqoonsiga hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland waa soo tabarlaayay Somaliland oo ahayd in lagala xaajoodo gooni isutaaga
وحدا الحياة أما وذا شقينا لما لها حكومة فدرالك في رجارة حريرك حماضي حكومة فدرالك الدولة قبل يدو وحول سبب سنة موقف كمدحضة أسر رئيسة حكومة فدرالك وإلى أنتي لدورتي سيدة بن يسيتو صاحبه وجوها والقلي ويقد هبك فدرالك يسون ولا أنت هبك للتلسنماء أنت تبرت أسامح له توحى هرتاجن شعبيجا يدولة قولديدا أهربوا إن راح هبك فدرالك كان كلية اللي جوه شيء هدان لو أول شيء تسألوين كوجوا وين فدرال دي لماذا ما لحد حكومة فدرالك وحكم ده كو كلا درستي قليه وذا تشجع ما لحد صار leadership forum كي لجوه جاميني يدلك سوى ذا شرع أو أي حبناك هايين ما لحد فدرالك يكون الدولة القبلية ده لبا رديد دي هو جاميه وعداجة هاي برلمان كا هي محكمة السرية صدح إن برلمان كا هي محكمة السرية اللي ودي بو مدح عن كرمسة ومدحوينه رئيس الوزراء هو تان قضب كحيدا اسكو ميلان كا أود شرع دشنتا يتنفلنت طلابات المانوح ربيتان ككلة الاسنمو مدح وصل رئيس حكومة فدرال كا وحي هيد إن سي انقلابه أي أريدان هجان كبار لمنك وعقلوا قلها وسير هذا اللي قدري حل بأن آد أبدا واللي أمري إن الحكومة النقدين كريم وحاسدوا كل جنوين إرادة لا قري حل بأن بدن سي أي نعم ليان النقدان تاني وحي كانتي اسكو ميلانكا لبدا أودود الدولة ده وأنا ماشي كبحري كالنتي برلمانك كلها كرميري ده حكومة ده إيه هو بنتا كردقن كدستورك حقيقة أن الديدي كرين وين برلمانك هذا جرا وحبا كدوانين كي حلقي جنرال محمد سيد بري يزعبوينها وعشكل أنا إن وحال لي وحي مدحوينها من رئيس الوزراء أي ربان إد سؤالك كيني كرتا أي جرين حتى هدي الدستور كرم مرسمتها تبر حماك كإيمان إيسا إن يندلك قعنتك وهينين يا إني سومالي دو كو أدك تاهي أقبالي دا حكم كالتالسا مركلي أي كلية كهر تاجن مدح هذا شرطة إنه ضلكم نقضوا كلي كتاليس هبكا فدرال كأنا داقد لقطول دور كباش عالمك مددي داريد أي سوك عكوف يسيد يجريلد الدولة الصومالية باش عالمك يور الولاد كإيجاد وحيكون هايين دور مقوده ها تتاجري دقالة أما يسكو كيني دكوحها يستيدن أما كعادينتا كدقة الدستور دور كاز وأنت بدن وتي كعن مروتشس ملاحظة سريع مركي كب إيران تبتي لجوه شيء أما كم إرميران قبشة دورشوين كي للمدعي هذا ما إلى أنتي لدورت مدحوين محمد عبد الله فرماشو دور كي باش عالمك وحون نقضي مد ميدة ونقول نقول هل بنا صوت واضح إن كسو أي مدنتهي إن لا يسلق ياسو وحيانك يقوم موقتا إن يسببوا يهين دور الريموت سيبا إيجاد يا مريكنك دور الشدي مدحوين ترامب وحي هوصل لكتي مهمة أفريقيا جودهان كارهان الصوماليا سفارة مريكن كان بدر لهين سفير وحي قرية قر الآن وتاجري حكومة فدرالكا عالم كنا دبهان مريكن كمهرم هذا isbedel ka Itoobiya oo haysa gudoonka igad ka dhacay iyo heshiiskii ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Eritrea madaxweynaha Soomaaliya ee isku darka hoonka wuxuu weeqay doorkii igad